waxaan salaamayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaan salaamayaa marti sharafta qaaliga ah ee xafladan qiimaha iyo qaayaha expo-gan lagu soo bandhigayo iskugu timaaday ugu horeeyo saaxiibkay xildhibaan Cabdisaaq Dhowkar xildhibaan federaal dowladda Soomaaliya rugta ganacsiga advisor Dr. Maxamed Xasan Tifow gudoomiyaha qurba joogta isku xirka qurba joogta qaranka Soomaaliya Dr. Cabdullaahi professorka waxaan salaamayaa agaasinka soo qaban qaabiye expo-gan Ridwaan iyo guud ahaan bahda midiyaha ka soo qaybgalayaasha isbitaalada iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee maanta ito isku yimaada halkan shakhsiyanka wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka waxay ii tahay sharaf inaan ka soo qayb galo expo caafimaad iyo ganacsi network u sameynaya isku xiraya waxay leedahay ahmiyad waaweyn isku imaatinka noocan oo kale waxay tusinaysaa ay keenaysaa adduunka meesha uu marayo iyo dalkeenna waxyaabaha ugu dambeeyay ee yimaaday in halkan lagu soo bandhigay maanta ito waxaan arkay runtii isbitaallo qiimo badan iyo ganacsato kale oo kala duwan iyo productionska localka dalkeena gudaheeda lagu sameynayo waxaan marka koowaad encourage garanayaa garab istaaganahay cid walba oo ka shaqeysa wixii local productionka dalkan shaqaale iyo horumar caafimaad iyo ganacsi iyo u keenaya shaqooyinka waxaan marka labaad runtii u hambaliyeenayaa bahda caafimaadka ee keentay halkan ee isbitaalada kala duwan iyo productionska ka shaqeynaya dawooyinka dalka inaanu aragnay dawo dalkeena lagu sameynayo oo halkan maanta lagu soo bandhigay inaan aragnay systemyo u fududeynaya shaqaalaha runtii inay helaan meel ay shaqaale ka raadsadaan bahda caafimaadka inaan aragnay in dalkan la keenay systemyo keenaya in dalka wixii dibaddiisa caafimaadka loogu aadi jiray gudaha lagu qabanayo waxaan isleeyahay oo waxyaabo runtii dalkan iftiin u ah keenaya in horumar dalkan uu sameeyey iyo tallaabsi dhinaca caafimaadka ah qurba joogtii ay maal gashanaysa dalkan waan u hambaliyeenayaa dadkii maal gashtay dadkii kansarka maal gashtay cudurrada dhibaatooyinka badan keenaya dadkii maal gashtay security-ga dalka dadkii maal gashtay waxyaabaha local productionska haddii ahaan lahaayeen burka haddii ahaan lahaayeen daawooyinka iyo si guud waxyaabihii intaan ku aragnay maanta intu waa maalin qiimo leh waxaan joognaa third edition of Somali exhibition ama Somali business and health exhibition waxaan halkan ka leeyahay waxaa inoo daafuran labadii maalin ee loogu talagalay exhibitionka inuu socdo oo ah maanta maalintii 14aad iyo berito oo 15ka si weyn waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed ka faa'iideysta discountyada idin sameysay dadka halkan jooga waxyaabaha freega ah waxay idin tahay experience nooc cusub maalin qurux badan maalin ganacsigiina soo bandhigaysaan maalin dalkan aad tusaysaan shacabkiisa inay tahay horumarka inaan u tilaabsanay si guudna waxaan leeyahay waxa hadda joogtaan oo idin furan si toos ah third edition Somali Business and Health Expo 2025. Thank you very much. Welcome everybody.